Istiraatiijiyada kooxda TPLF ee sharci darrada ah ee ay ku kala saarayso dadka Tigray iyo dowladda federaalka ayaa fashilantay sida uu sheegay mudane Getachew Reda. Mudaharaad nabadeed oo loogu cambaareynayo dulmiga iyo cambaaraynta kooxda TPLF ee sharci darrada ah ee ka dhanka ah dadka Tigray ayaa lagu qabtay magaalada Addis Ababa, gaar ahaan Masqala Dabaabay, iyadoo la adeegsanayo hal-lugyo kala ah jooji rabshada, nabaddu ha guulaysato. Mudane Getachew Reda oo ka qayb galay dibadbaxaasi ayuu ku sheegay in istiraatiijiyada kooxda TPLF ee sharci darrada ah ee ay ku kala saarayso dadka Tigray iyo dowladda federaalka ay si toosa u fashilantay. Wuxuu sidoo kale ku booriyey dhalinyarada deegaanka in ay ka soo horjeestaan baaqa kooxdan ee sharci darrada ah. Getachew Reda oo sheegay in istiraatiijiyada ay bilowday kooxda TPLF ee sharci darrada ah oo loo yaqaano Cimdo ay burburinayso dalka. Wuxuuna sheegay in shaqada lagu fogeynayo dadka Tigray iyo dhammaan dadka Itoobiya aan aqbali karin. Wuxuu sheegay in kooxdu ay hiigsanayso inay u burburiso dhalinyarada iyadoo deegaanka Tigreega u rogto goob dagaal, isaga oo ku nuuxnuuxsaday in kooxdu ay tahay cadowga dadka Tigrayga ah. Mudane Getachew Reda waxa uu sheegay in dadka Tigrayga ay yihiin dad nabad jecel oo ay garab taagan yihiin dowladda federaalka. Wuxuuna sheegay in dadka looga baahan yahay in ay is-abaabulaan oo ay la dagaalamaan kooxdan. Waxaa kale oo uu tilmaamay Getachew Reda in beesha caalamka ay cadaadis saarto heshiiska Pretoria ee la hirgeliyo, isaga oo sharaxay in dadka Tigreega ah ee dhalinyarada ay gacmaha isqabsadaan si loo burburiyo kooxdan sharci darrada ah ee TPLF. Tahriibayaasha sharci darrada ah ayaa lagu qabtay Dubai, dalkaasi ee Imaaraadka Carabta. Booliska federaalka Itoobiya oo kaashanaya booliska Dubai ee Imaaraadka Carabta ayaa xiray 2 qof oo tahriibayaalka dadka ah oo loo kala yiraahdo Daawud Tafari Lagase iyo Desta Tagan Abagaaz, kuwaasi oo ku dhuuman jiray dibadda isla markaana falalka baxsan bani'aadanimada u geysanayay dadka Itoobiyaanka ah. 2 tuhmane oo ugu waaweyn ayaa la xiray isla markaana loo gacan geliyey booliska federaalka ee dalkeena kadib markii adeegsadeen habab kala duwan oo khiyaano ah si sharci darro ah loogu tahriibiyey 105 muwaadiniin oo ku sugan Dubai, isla markaana loogu soo ururiyey in ka badan 188 milyan oo bir ah. Dhibanayaasha ayaa loo geystay xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Booliska federaalka Itoobiya oo ku saleynaya xog laga helay safaaradda Itoobiya ee Dubai, Imaaraadka Carabta, ayaa xaqiijiyey in tuhmanayaashu ay ku noolaayeen Dubai oo ay shaqaalaysiinayeen dhalinyaro iyagoo adeegsanaya asxaabtooda ku sugan dalka gudihiisa si ay u diraan Dubai kadibna ku xiraan xarumo xabsi ah oo ay u talagaleen dadka ay tahriibinayaan. Sidoo kale waxay galeen dambiyo halis ah oo sida garaacidda iyo jirdilka haweenka. Booliska federaalka Itoobiya intii ay baariyeen kiiskan waxay soo saareen amar maxkamadeed oo ka dhan ah Daawud Tafari Lagase, Desta Tagan Abagaaz iyo la howlgayaashooda, kuwaasi oo dambiga si isku xiran u geysanayeen gudaha iyo dibadda dalka. Booliska federaalka iyagoo kaashanaya booliska Dubai, tuhmanayaasha ayaa la xiray oo loo gacan geliyey booliska dalkeena 10 bisha Xamle 2018. Tuhmanayaasha iyagoo aan haysanin ogolaansho sharci ah oo ay cid dibadda ugu dirayaan, waxa ay shaqaalaysiiyeen muwaadiniin badan oo ka kala yimid qaybo kala duwan oo Itoobiyaan ah tan iyo 2015 taariikheedka Itoobiya, iyagoo xiriir la sameynaya koox dalka ku sugan iyo koox dibadda ah, iyagoo leh waxaan u shaqaalaysiin doonaa shirkado kala duwan, iyagoo faafinaya macluumaad been abuur ah iyo ballanqaadyo been abuur ah iyo u dirista fiisooyinka dalxiiska ah ee been abuurka ah, iyaga oo ka helaya hal qof inta u dhaxayso 320,000 iyo ilaa 600,000 oo bir ah.
kadibna waxa ay ku wareejinayaan lacagta birta Itoobiya dirhamka iyo riyaal iyagoo adeegsanaya akoono bangi ah oo ay ku furteen la howlgalayaashooda dalka. booliska federaalka Itoobiya wuxuu sheegay in uu si dhow ula shaqeynayo booliska Dubai iyo safaaradda Itoobiya ee ku taala dalka Imaaraadka Carabta si loo xiro kuwa sameeya falal sharci darro ah. waxaana u mahadceliyeen hay-adaha taageeray xariga tahriibiyaasha iyo kuwa kala shaqeeyay barnaamijkan ka qaybgalka muwaadiniinta khadka telefoonka ah ee bilaashka ah 991 waxaana ugu baaqeen dhammaantooda in ay sameeyaan iskaashi joogto ah. Itoobiya oo loo doortay gudoomiyaha ururka dowladaha Afrika Kariibiyaanka ah iyo Pacifiga oo ACP. Itoobiya ayaa loo doortay gudoomiyaha ururka dowladaha Afrika Kariibiyaanka iyo Pacifiga. shirkii 120aad ee golaha wasiirada ururka dowladaha Afrika Kariibiyaanka iyo Pacifiga ayaa lagu qabtay Brussels, Belgiumka 8 ilaa 9 bishan 2018. wafdi ay hogaaminayso wasiiru dowlaha maaliyadda Marwo Samarita Sawasawa oo ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. ajandaha shirka wasiirada ayaa diiradda lagu saaray dib u eegista hirgelinta bayaanka Malabo iyo soo jeedinta tallaabooyinka lagu dhisayo awoodda dhaqaale ee ururka si waara. kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda geedi socodka dib u habeynta ururka, hirgelinta heshiiska Samoa, arrimo kale oo ka faa'iideysan doona ururka iyo dowladaha xubnaha ka ahaa. Itoobiya ayaa jeedisay khudbado ka turjumaya mowqifkeeda oo tilmaamaya meelaha diiradda la saarayo ee ay raaci doonto inta ay xilka madaxtinimada ururka ay hayso. Dhammaadkii shirka Itoobiya waxaa loo doortay madaxweynaha golaha wasiirada ee ururka Afrika Kariibiyaanka iyo Pacifiga laga bilaabo 1 bisha Agost 2026 ilaa 31 bisha January 2027. Itoobiya waxay soo bandhigtay meelaha mudnaanta leh oo ay diiradda saari doonto muddada 6 bilood ee ay xilka madaxtinimada ururka ay hayso. Itoobiya waxaa 2 jeer shaqaysay gudoomiye ahaan ururka tan iyo markii la aasaasay 1975 laga bilaabo 1 bisha Nahse ilaa 1986 ilaa 31 bisha Tir 1987 iyo laga bilaabo 1 bisha Yekaatit 2017 ilaa 31 bisha Xamle 2017 sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda. doorashadan Itoobiya ee hadda ah ee gudoomiyaha golaha wasiirada ee ururka Afrika Kariibiyaanka iyo Pacifiga waa guul weyn oo xaqiijinaysa saameynta diblomaasiyadeed oo ay ku leedahay masraxa caalamiga ah. Mas'uuliyaddan taariikhiga ah kaliya ma sii xoojin doonto ka qaybgalka Itoobiya iskaashiga koonfureed, laakiin waxa ay sidoo kale furi doontaa fursado diblomaasiyadeed oo ay ku hogaamin karto iskaashiga wadamada xubnaha ka ah iyo midowga Yurub si loo ilaaliyo danaheeda qaran loona dhiso muuqaalkeeda wanaagsan. xiga ee wasiirada ACP 122aad waxaa la qaban doonaa bisha Noofembar 2026 sida ay go'aamiyeen dowladaha xubnaha ka ahaa, waxaana shirkaasi martigelin doonta Itoobiya.